laga qaato maalintii ee bixisa ilaa lacagta maartay dadka danyarta weey haddaan su'aal weydiiyo kulle gaari waa ku leedihiin Hargeysa bal ii sheega ninka daartiisa tax laga qaado ee bixiya regular waxa way ku taalaa in waxyaalaha qaar la bixiyo laakiin taas waxa weeye iyaga dafteeda u baahan marka taxka ka hadlaysa wacyigelin badan iyo hawl had wadankan aad joogtaan waxa ay imika wada jeclaysanaysaa taxkaasu kii waa tax base wax wal oo social services soo aragtaan oo imika la macaansanay waa tax base haddaan tax jirin horumarna ma yimaado waa mushkilad ah in laga fikiro dadkana ma aha inaad tax wadakada ka saartide waa inaad affordability-ga eegtaa iyo muxuu qaadi karaa ee shacbigaagu qaadi karaa waa dhibeerta haddaan ilaa kun doolar waxaa ka bixi dee oonad bixinay ma bixin karta marka daraasadaasna xagga PFM-ka waanu samaynay bal hadhow haddii aan idinku soo saaro waxoogaa ya nala soo gaaro oo maxaan ku dhahay markaa taasu waa caqabadaha haysata maxaan ku dhahay horumarka ta kale waxaa jirta barnaamijyo badan oo socda oo barnaamijka la yidhaha reconstruction development program Somaliland oo ah RDP la yidhaha oo 550 milyan oo dollar oo 5 sanadooda oo qaaraan bixiyaasha dadna wuxuu yidhaha deeq bixiyaasha qaaraan bixiyaasha iyo xukuumadda Somaliland ku heshiisay in mashaariic badan oo xagga kuwan iskuullada idin sheegayo imika aad u socda xagga caafimaadka biyaha xukum wanaaga iyo qaar kale maxaan ku dhahay imika ku salaysan kaan macnihiisu wuxuu ahaa inaynu ka helno tiqad iyo aaminaad dadka qaaraan bixiyaasha inaynu isla shaqayn karno oo ina aaminaan oo inu mar u bilowno base wanaagsan oo markaa ay halkaa ka hagaagto waayo haddaad halkaa ka hagaagto oo xagga dhaqaalaha ka hagaagto economic diplomacy-ga ay ka hagaagto political diplomacy-gii siyaasaduna way isbuuxiyaanoo kan aad kala hadlaysa ictiraafka ayaa dhaqaalahana ku jiro in adeerkii ku jira ama xukuumaddiisa ku jira marka waa laba isbuuxinaya oo markaa keenaya wixii mataqaanaa la doonaya taas runtii si wanaagsan bay u socotaa 2 sanadood bay socotaa qiimeyn baanu ku samaynay bishii hore 3 sanadooda soo socdana reprioritization waa la sii jiheeyay meelaha ay sii gelayo dhaqaalahaas oo dhammi waxaananu rajaynay in la sii badiyo USAID oo ka maqnayd na ay soo gasho kuwa ku jira imika waxa weeye EC-ga qoladan European-ka iyo Norway oo isku xiran oo iyagu meel ka soo gala UN-ta agencies-ka 13 oo iyana meel ka soo gala iyo World Bank-ka imika barnaamijka ku xiran USAID waxyaalaha kala hadalay waxa inay ku soo biirto iyagaana awood badan leh waana imika taasina waa mid wada hadalkeedii socdo oo markaa la ballaariyo barnaamijkaas bacdamaa intii hore guul laga gaaray